السلام عليكم soo dhawaada saaxiibada qiimiga badan in badan oo kamid ah dadka sportska ciyaara ayaa ku xeel dheeraaday korinta murqahooda muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa 10 laacib oo ku xeel dheeraaday dhisidda murqahooda balse inta aanan bilaabin muuqaalka daawade waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka like saar si aad noogu dhiirigeliso samaynta muuqaalo kale oo xiiso badan Mustafa Ismaaciil laacibka lagu magacaabo Mustafa murqihiisu waxa ay shabahan kartoonka baabay balaca murqiisa gacantu waxa uu gaarayaa 79 cm laacibkan reer Masar ayaa baraha bulshada caanka ah waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka waxa uu galay xulka Guinness ee sanadlaha ah laacibkani ayaa maalintii cuna 2 kiilo oo chicken ah Greg Valentino waxa loo tixgeliyaa ninka ugu doqonsan caalamka waxa uu sameeyaa wax walba oo uu isleeyahay murqahaada way korin karaan balaca murqiisa gacantu waxa uu gaarayaa 71 cm sida buufinta ayuu u sii aariyaynayaa murqihiisa isaga oo aan ka fikirin mustaqbalka jirkiisa Sally McNeil shaqadeedii waxa ay uga tagtay inay murqaheeda koriso waxa ay ku guuleysatay 2 jeer abaalmarinta ay bixiso wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka sanadkii 1996kii ayay noqotay gacan ku dhig leh kadib markii ay maalinta jaceylka adduunka dishay ninkeeda waxaana lagu xukumay 19 sano oo xabsi ah Marcus Roll laacibkani ayaa loo tixgeliyaa laacibka ugu garbaha weyn caalamka tartamo badan ayuu ku guuleystay isagoo 19 jir ah ayuuna bilaabay tababarka ilaa maantana wuu dadaalayaa Andres Manzer waa tusaale weyn oo ka turjumaya dhameystirnaanta jirka arrintaani ayaa waxa sabab ugu ahaa cudurro badan oo ku dhacay ilaa uu sanadkii 1996kii galay isbitaal isagoo ka cabanaya xanuun caloosha ah baaritaan kadibna waxa loo sheegay in wadnihiisu uu 2 jibaar ka weyn yahay ama uu ka culus yahay midka caadiga ah nashaadad badan oo uu sameeyay ayuuna heerkani ku soo gaaray Candice Armstrong waxa ay u dhalatay Britain waxa ay ku nooshahay caasimadda London iyadu waa gabar waxa ay jirkeeda ku beertay hormoonaadka siyaadiye xooga si ay u rumayso riyooyinkeeda waxay ku hamin jirtay inay gaarto xaaladda dhameystirnaanta jirka laakiin arrinku waxa uu noqday mid aan caadi ahayn maxaa yeelay hormoonaadkii ayaa u yeelay muuqaal raganimo oo aysan filayn Julian Strow waxa uu galay xulka Guinness ee sanadlaha isagoo jira 10 sano oo kaliya hadda waa 16 jir waxa uu ku raaxaysanayaa heerka dhisnaanta jirka guulo badan oo dhanka sportska ah ayuuna xaqiijiyay isagoo waliba aad u da'yar Jerry Hyman dhulka ayuu ku dhacay xilli uu ku guda jiray sameynta nashaadaadkiisii joogtada ahaa arrintaasi oo ka yaabisay dhammaan dadkii la joogay laakiin shaki kuma jiro inay tahay natiijada tababarkii adkaa ee uu sameynayay arrintaasi ayuuna ugu dambeyn sababsaday oo uu u geeriyooday Terry Harries 2002 ayay ku guuleysatay gabadha ugu sareysa xagga dhisnaanta jirka ee caalamka waxay ahayd tusaale ay ku daysadaan dhammaan gabdhaha sportska iyadoo 49 jir ah ayay geeriyootay kadib markii uu wadnuhu istaagay Sajjad Garibi waa ninka ugu culayska iyo jismiga weyn caalamka waxa lagu naanaysaa halka Iran waa wiil reer Iran ah waa 26 jir culayska jirkiisu uu gaarayo 155 kilogram fiiri wajigiisa waxa uu awoodaa inuu sameeyo falal aan dabiici ahayn ugu dambeyn daawadaha qiimiga badanow waxaan si sharaf leh kaaga codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto si aad noogu dhiirigeliso samaynta muuqaalo kale oo xiiso badan mahadsanid